wanaagsan idinkiin baaqiyaarta hawada naga daawanaya oo meel kasta oo joogtaanba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo telefishinka caalamiga ah oo Cable TV xarunta uu ku leeyahay Jarmalka xiriir aanu kula yeelnay wasiirka gaadiidka badda dekedaha iyo waliba la dagaalanka budhcadbadeedka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland injineer Saciid Maxamed Raago oo isagu haatan ku sugan dalkani Jarmalka oo aanu kula kulanay hoogii uu ka degan yahay magaalada Kassel ayaa ugu horeyn waxa aanu waraysigiisa ku soo qaadnay arrimo badan kuwaasi oo marba dhinac ka eegayno waxaanu soo ugu horeynta ku soo dhaweynaynaa injineer Saciid Maxamed Raago barnaamijka ku soo dhawow Cable TV wasiir هذه أدوان ستين بقشرات اللي قلت ما أدري حافظ يدا هذه أدوان وجود هذا مدنا وسير مدة أيه شوفتي دل كان يشرمل قبل ما كهذا واحد ففاهين جالس حالة دجودة دل كي هذا يجور بحين يجور بشوفته يقول وجود هامبا وشو أنت غير بلدان يدك الصومالية ضبا هذه أدوان ما ستين مصطفى محمد كون كيبل تيفي وعشرة هذه قلت ما أدري حافظ دي كده جنا كاسل هذه أدوان رنتي يدك كده كاسل يا مشرمل كل جود كنت هذه أدوان أقول هذا علمي سويت أنت ناس ما يجي أنت شو قدر كجمرك هدي عندي بقول نقطة دلك مدل باب الوضع أنت بقصو مغنى حنوي مع عفمات دلك التلياني جاي دلك شرملك هذا سمع مهن ما نسك في عنا يو وادي قاعد كدي ونجا وغالي أنا اخترنا كم تشيلوا وأنا عفمات والله كنت حالة دلك أنت كم الصدق أنا أحتاج بس كبدلي هذه نقطة الدولة الدحية هذه نقطة في ماملكي أنا وقت السنة بتلان مد واحد شراء أو مدحوين على دورتي ولا ساعتان وحق كلود شراء برايم مينستر كي ولا مقعد مدحوين ارتواء شيء لكن برايم مينستر بالله مقعد دولة بالله بالسي أنت حاجة قصة مرة حاجة يقلفت هذا ما سلاس بهرمك وقصة واحد السعودية يدنا إن حساب لتي لو دواقي ولا هبجري بعض مستي أنتي وحشروع لوها maxaan ku yiraahdaa qabashadii Kismaayo lafteeda oo lafteeda iyadana la qabtay muddo kan xigla mudana wasiir Saciid qodobada baynu dul istaagnaa arrimahaas oo dhan insha Allah marka baad waxaan ku hornaynaa dhinacan dowlad goboleedka Puntland ee aad wasiirka ka tahay inta aad ka soo maqnayd waxa madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole uu ku dhawaaqay xisbi axsaabtii kalena kulli bijidkii ku soo jiraan sidee baad u aragtaa xisbiga uu ku dhawaaqay iyo ka fikir siyaasad ahaan maadaama dad waan ka soo maqan tahay haddii aan Mustafa dib ugu noqdo su'aashaada koowaad waxa weeye runtii su'aal muhiim ah haddii aan nahay anagu reer Puntland ama dadkii runtii Puntland sameeyay waqtigii la dhisay waxaa mabda ayagu ahaa in runtii la dhiso loo gudbo axsaab laga gudbo qaabka qabiilka waayo hadda qaabka wax lagu soo dhisaa وقاب بيرد أما قاب لو كان يديت اللبان حتى هديت هاي ما في وسيلة دكتور في قبيل باين تبدأ يكون معنا مركا إن لو قد به ها برنامج الدولة دو نمبر كو واي أفريت بس إنه لو قد به واي ما أنت إن لو قد بحسب لو قد مركا بتيار عادي وفكرة أنا سود وينيو وفكرة ده مركز تنا كانت وقت قال إسكو قبضه أما شرعيات اللي إسكو قبضه هدي ويحي حسابي تكتب يحسبي ويحي سوى عاديين حسبيه بالله تستمعيه marka runtii anigu waxaan aad iyo aad baan soo dhaweynaya arinta in xisaabta loo gudbay lagana gudbay anigoo reer hebel ama anagoo beel hebel waxa saan rabnaa maanta waxaan maleynayaa ama beel yar ahaw ama beel weyn ahaw in codku maamulayo qofkii ugu fiican marka uu de hogaanka xisbigaas uu wadaayo oo aan noqonayn reerkana reer hebel ama reerkana islaamka wasiir hadii ku sii joogno iyadoo ka war hayno in aad ka mid tahay wasiirada in badan aan dhicin oo dadka ku xantaay sheegaan Saciid Maxamed Raago wasiirada badana wax qabadka la taaban karna muujiyo marka dhinaca positive ka laga eego waxaad ka tirsantahay dowladda Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud saaxiibaad u dhow walayd ku xanta marka hadafka ma ugu jirta siyaasadeed inaad xisbigiisa aad ka mid dhalisaan oo ka sii wadaan mise adiga iyo saaxiibada waxa jira barnaamij kula aad xisaab ku sameeynaysan runtii horta xisaabta runtii waxaa muhiim ah xisbigu inuu yahay mid maaragtay constructive ah ama dalka dani ugu jirto xisbaan furanaya hadal maaha waa inna baahina keentaa xisbiga runtii marka la furanayo anigu hadda dee dowlad baan ka tirsanahayo weli xisbi aan furanaya ma jirto maadaama haddaan dowladna xisbiga aan ku heshiinay
waana xisbiga ugu horeeyay oo Puntland laga furo ay tahay hadda xisbiga dawladdu hadee waxaan u maleynayaa kaasun baan hadda ku wada dhanahay hadhow waxay noqon doonto dee ilaahay baa og laakiin maadaama aanu hadda Cabdiraxmaan Faroole iyo dawladdiisu aanu ka tirsanahay xisbiga horseed la yiraahdo ayaana dawlad ahaan iyo maamul ahaan waxay u shaqeeyay dawladda ayaanu ka wada laakiin waa dhici doonta hadii hadhow in xisaab kale la kala noqdo waa macquul laakiin laa hadda kaasaa muhiim ah runtii aad baan noo soo dhaweynayaa waayo waa arrin muddo la sugayay oo runtii u baahnayd in mar hore la sameeyo waayo Puntland isqabaqabsigeeduba inta badan wuxuu ka imanayay beelahaas marka waxaan marayaa maanta xal baa la gaadhay qofkii doonaya maanta inuu wax bedelo ama Puntland ka bedelo siyaasiyiin badan baan arkayo qayl inta badan doodaya waxa weeye maanta meedaanka ha yimaado ha furto ha qanciyo dadkuna ha doortay marka waxaan anigu haystaa runtii wax muddo badan la sugayay maanta hirgashay inay in loo saacadku wasiir waxaan ka warhaynaa in hami fara badan oo siyaasiyiin reer Puntland uu jiro oo ay doonayaan inay masafkan wadanka hogaamintiisa qaataan maadaama idinku dadkii in badan ka dhaqaale badan tihiin iyadoo dhinac walba leegayo hadda tii wasiirada iyo hadda tii madaxweynaha iyo governorska goboladaba meel la oran karin caqabadaad u dhigtay siyaasiyiintii kale inay xisaab soo furtaan oo dad badan soo ururiyaan awloriyadu inuu in dhowr iyo 60 kan xildhibaan baarlamaanku ay codka bixinayaan oo ay qofkii siyaasiga oo fikriisa nimanka ka dhaadhicin karo laakiin imika inay goboladii Puntland oo dhan tagaan oo la bilaabaan inay ku cuslaan siyaasiyiintii doorashadii laga lahaa bil iyo bar kadib runtii ma arko anigu annaga laftayadu la mid baan nahay waxaan u malaynayaa in hadda la furo xisbiga koowa registrationkii in xisaabtii loo furo shuruudaha jiray runtii oo xisbiga ku dhamaayo marka waxaan u malaynayaa iyagaa naga sii diyaarsanaa oo muddo noo sii fikirayaan malaynayaa anigu waayo kolleyba diyaar garoobay la tahay annaga armaan anagu gulidanaa marka waxaan aaminsanahay xagga dhaqaalaha hadday noqoto iyo xagga baalkii horta wixii amni ah dawladda mas-uulka ah inta xisbi ahaan aanu xaq u leenahay biyagun xaq leeyahay kow amnigooda xataa markay qabanayaan garanaysa hadee in ay wax fulinayaan xisbigooda ay ka hadlayaan dawladda amnigii iyo facilitationkii wixii oo dhan u qabanaysa marka runtii waa wax aan wadaagnaan u malaynayaa wax hadda aan anagu gaar u leenahay ma malaynayo inuu noqon doonaa iyadoo anaga ka TV honkiilahan fursad noo tahay inaan kugula kulno dalka Jarmalka yaa waraysiga dhinacyo badan aan la yeelanayna markaynu dhinacan bal maamulka iyo xisaabta yar joojino waxaynu ka warhaynaa in falalkii burcadbadeednimada oo adigu waliba wasiirka la dagaalanka Puntland inay ilaa xad yaraadeen marka runta laga hadlay qaab nooceedu wajahada la oran karaa runtii horta dee waa hadba siyaasadda dawladdu hadba qaabkii waxa u maamusho anigu sirahan waxaan ahay wasaaradda u xisaaranay waa wax runtii aanu qabano wax dawladda oo dhan ilaa madaxweyne ilaa iyo taliyaha weers iyo boolisku qabto runtii dee horta wax badan baan soo maray oo waad ogtiin xataa anaga ay agaasimahayay qaar baybana aftooyanba oo sida maraakiibtaas baa naloo haystay muddo runtii in lagala dagaalamo badda oo la joojiyo ay yaraadaan runtii waqti badan baanu ku bixinay annaga iyo runtii ciidamadaas saakada waxaan ku wada hadlaynay markab badda ku daadiyay sibir oo xamar sibirka soo celiyey oo laga lahaa north waqooyiga Korea kaasoo xamar inta midaqooyay sameeyo ku daadinayay badda oo ciidanka badda soo qabteen marka kulliyo waa arrin horta baddu arrintu taagan oo dhibaatadu taagan tahay waana meeshii dee ummaddu wax u soo marayeen runtii oo ama caalamka oo dhan wax u marayeen waad la socotaa 50,000 oo qof 50 baan u maleynayaa 1,000 baa markab meelaha mara Suez Canal iyo South Africa sanadkii 30,000 waxay soo maraan gacankeena marka runtii waa arrin weyn oo wax badan dee u baahan in la qabto waa la yareeyay annaguna xeebtaan kala dagaalanay maamul ahaan nimankeena xagga badday kala dagaalameen marka waxa weeye maadaama ay soo yaraadeen marka waxa weye maxaa looga gudbayaa su-aasha weeye haddii nimankii iska tagaan dib racdi waa soo noqonaysa marka waxaa la rabaa alternative kale in la helo oo xeebtii inta loo dego nimankii ama iyagiina wax laga qabto amnigoodii maxaan ku yiraahdaa noloshoodii dib loogu noqdo dalkii oo aan hore looga socon laakiin way wax isbedela la helaa sideedaba
waxaan aaminsanaya anigu labada Soomaaliya arrimood la haray waa burcadda iyo al-shabaab labaduba waxay u baahan yihiin maaha amisom inay ku filaanayso la dagaalanka al-shabaab waa in dowladda dhexe iyo dadka maamuladu ay ku heshiiyaan dadkii loo rehabilitate gareyn lahaa kabacdi burcaddana sidoo kale labaduba waa isku mid midna marka buu hijaagaraynaya midna dad beledka marayo hijaagaraynaya waa isku mid kidnapping and hijaabi marka labadiba waa dhinacyadan ka wadaan saacad wasiir waxaad isla isbuucin iminka ay ku jirno aad shirkaga qayb gashay jasiiradda Qubrus shirkaas maxaa lagaga hadlayay shirkaa waxaa lagaga hadlayay maxaa looga gudbi karaa hadda burcaddii ilaa 75% way soo yaraatay maxaa si looga gudbaa kow waxaa muhiim ah hadda laga hadlayay inamada yaryar ee badda loo diro ama cidda dadta waa loo yahay horta sidoo ogo wiil kasta oo badda loo diro 1000 dibadda ku xiran mid aan war laga qaadin waan la wareysan oo aan warkiisii oo sax ah lahayn ma jiro cidda soo dirtay reerku ka mid yahay meeshu ka yimi yaa soo tabantaadiyay yaa maalin wax siiyay wax aan qorayn isla halka dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha ku xiran adigu wasiir badata ama ka soo jeedeen meesha doonaanba waa dhalinyaro Soomaaliyeed maxay idin ka qorshaysan inay halkooda ku xidhnaadaan oo aad deedna burcadbadeed la xidhay aad ka soo qaadaan mise inaba mas'uuliyadiin waxay idin faraysaa inaad wadad Soomaaliyeed dhaqan celiyo u sameeyaan oo qaabab kale u wajahdaan aad iyo aad ma mahadsantahay horta anigu wasiir ahaan intaan qaabisanahay waa intaa sheegay si wanaagsan waxaan anaga mas'uuliyadda tahay inaan la kulanno sidee horta cadaalad lagu qaadaya sharciga lagu fulinayo sidee yahay ma loo dhaqmay si fiican cadaalad ma loo saaray maxkamadda maxaa hadhow lagu sameyn doonaa kow waxaan jecelahay in dalkii dib loogu celiyo oo dalkoodii hooyo dib ugu noqdaan oo halka ay ku dhamaystaan xukunka waxyaabaha ugu badan aan inta badan ka shaqeynayno hadda lafteeda jeelal baa dalkii laga dhisayaa dhinaca Somaliland waa laga dhisay Puntland waa laga dhisay Xamar waa laga dhisayaa marka in markaa Somaliland lagu dhisayo in dhulkoodii dib loogu celiyo laakiin la fuliyo wixii lagu xukumay oo xukunkii halka ku dhamaystaan say waalidkoodii waxood iyo inay bartaan macnaheedu aan qoom barwaad garanaysaa waagi hore jeelashu waxay baran jireen furniture ugu qurux badan bay sameyn jireen waxaan ku raadayay waa inta soo gaaray kaftan wixii midana wasiir halka aad laga dhisay siyaasiyiintiina aad dhisaysan jeelashi ma u ballan qaadin inaad cafinaysaan qofka intuu soo galo sida inuu aragnaba day yiraahdo qofkaas waxaan ka tirsanaa ururkaas waan ka soo baxay cafis baan rabaa cafiska loogu fidiyo waxaad sheegtaan badanaa inaad la dagaalamaysan burcadbadeedka dhinaca kale midaan odhan burcadbadeed kasta oo soo xaroodo waxaanu siinaynaa abaalmarin waxaanu siinaynaa schools free oo iskuulada Puntland oo dhan jaamacadaha Puntland uu dhigan karo si aad xitaa dadka qulubtooda wax uga kasban kartaan runtii maamul ahaan aniga horta anaga maamulka kulay madaxweynaha uu ka hadlay uu ballan qaaday wixii ka baxaya inuu wax badan la qabanayo inuu maaragtay vocational kale training loo furayo ama wax la barayo kan lagama quusan wixii wada Soomaaliyeed weeye xil baa naga saaran anigu waxaan xitaa maxkamadooda ka qayb galaa sida loo fulinayo maxkamadda jeelashaan ugu tagnaa waa dadkii hadda 150 baa hadda ku xidhan Seychelles markii maxkamad loo dhameeyo waxa in la soo gudbiyaa la rabaa marka runtii meeshay doonaan Soomaali waa Soomaali inay dhalinyartaasi waana dhalinyaro yaryar waxa aniga iga dhib badan oo aniga muhiim ah inay inamada yaryar helaan nolol kow iyo inay sharci cadaali ah ay maraan ama justice maartay fair ah la mariyo lagu tagrifalin kow lana helo dadkii ka dambeeyay muhiimaddu waxa weeye yaa soo diray waayo ragii waxay sidoo kale raadad haysan filayaan waa khasab raadlaan lama joogo cid kasto cid soo dirtay waa macruuf waa loo yahay saacadu wasiir sideen ku warhayno gobolada Jubbooyinka oo badanaana ay halhays u tahay magaalada Kismaayo dhawaaqyo ayaa ka soo yeeraya aan bulshada Soomaaliyeed aad u jeclaysan maamul sameynteeda ciidamada shisheeye ee horkacayaan Kenyaanku ee soo galay maamulka Ras Kamboni ee uu hogaamiyo Sheekh Madoobe marka adigu ka wasiirhaan iyo ka siyaasi ahaan waa sidee fikirkaaga guud ee ku saabsan isla markaas su'aasha aan ku raacinayo waxay tahay yaa xaq u leh maamul sameynta goboladaas aad iyo aad baa mahadsan tahay horta runtii magaalada Kismaayo waa magaalo xasaasi ah
runtii waad ogtiin in badan baa dagaal ka dhaceen dad badan baana isugu yimi oo runtii waa magaalo maatadeed maanta multi metropolitan dad badan ku nool yihiin dad baa waagi hore deganaa haddana waa la yimi lama oran karo dadkaasi degaan maaha hadda way degan yihiin iminka marka anigu waxaan odhan lahaa magaalada Kismaayo waxay u baahan tahay taxadir weyn maamul samaynteedu iyo gobolada Jubbaland saddexba gobolba ha ahaadeen geedo iyo jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo geedo intuba xoogaa waxaa jira xasaasiyad laakiin waxaa loo baahan yahay xasaasiyadkaas in dawladuna ay aad uga taxadirto dadka degaankuna aad u taxadiraan oo dib loo abuuro maaragtay jawi fiican oo nabadeed hadday noqoto dhinaca dawladda iyo hadday noqoto dhinaca shacabka labadaba marka anigu waxaan soo jeedinayaa runtii maamul dawladda dhexe iyo dadka deegaanada gobolada degan inay arrintaas si fiican uga baraandegaan midda kale mid baa fiican inaan la khaldin dadweynuhu hadday yidhaahdaan maadaama dawladda dhexe ay tahay dawlad federaal ah dadka waxaa fiican in loo daayo inay iyagu maamulkooda soo dhistaan waayo hadday iyagu wax ku heshiiyaan waxaa fiican waxa ay ku heshiiyaan in loo hirgeliyo laakiin hadday u arkaan in dee interference lagu sameynayo waxa weeye iyana waxay gelayaan maaragtay inay obstacle kale noqdaan marka anigu waxaan odhan lahaa dawladda dhexena inay bal u dayso iyaga bal waxa kasoo baxaya oo iyagana ka dhaadhiciso inay yihiin maaragtay dawladdu u tahay favor oo aanay u ahayn iyagu waxay haystaan malaa inay wax xayrayaan laakiin waxaan odhan lahaa in dawladda dhexe lafteedu mowqifkeeda siyaasadeed muujiso shacabkuna runtii ay ku dadaalaan siday dhulkooda nabad uga dhigi lahaayeen uguna heshiin lahaayeen maamul fiican oo ay deegaanadooda marka anigu waxaan aaminsanahay runtii dadku inay iyagu tashadaan wax la dhistaan wax kasta oo la rabo in la sameeyana si wada jira loo dhisto runtii waxaan u maleynayaa madaxweynaha hadda la doortay hadee waa madaxweynaha federaalka dawladda Soomaaliya marka xoogaa waxaan ku xagaliyaa inaanu xoogaa ma diidanin laakiin waxaan jecel lahay in lagu dhaqmo dastuurkii la dhigtay kaasoo ah federal mudanusi waxaan ku dhownahay gabagabadii barnaamijka markaynu siyaasadaha iyo kasoo laabano dowlad goboleedka Puntland iyo Soomaaliya haatan waxaad ku sugan tahay qaaradan Yurub gaar ahaan dalka Jarmalka waxaa la kulantay sida ugu maqaalaa jaaliyada PDF Puntland Diaspora Forum Jarmalka ma laga yaabaa inaad socdaal kale haddii aan kuu qorshaysan yahay inaad jaaliyada kale oo u baahan kolley inay ku arkaan baa macquula inaad sii marto wadamada kale Yurub ay ku nool yihiin jaaliyada wallahi horta anigu jaaliyada reer Puntland kale lama kulmin jaaliyada Soomaalida oo dhan baan maadaama aan Soomaali ahay si wanaagsan gobolka aan ka iman baa Puntland Soomaali baan ahay marka ma kale jeceli anigu kan Puntland ama xamar ka yimaada ama waqooyi ka yimaada Soomaali anigu way Soomaali si wanaagsan laakiin dee maamulkii aan ka tirsanaa waa run khasab way saragnay runtii jaaliyadii halka waxaan isku aragnay boon runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa shir aan la qaadanay laakiin inta shirka aan qaadanay ma ayaan keliya gaar u siiyey inta kalena waa iska aragnay ama rag badan baan is aragnay dee meel un baana ku wada kulminay laakiin ama jaaliyadda xagga way ha noqoto ama dhinaca koonfureed madiga laftooda way is aragnay waayo waxaa Soomaaliya ku nool oo dhan baa bashar ku nool qof ah saan jecelahay Jarmalka marka wax la kala guraabo ma leh Soomaalida ku nool Jarmalka marka runtii aad iyo aad dhinaca ama Puntland ha noqdeen ama waqooyiga ha noqdeen ama Southka ha noqdeen waxaan aad iyo aad baan u mahadcelinayaa waxaan jecelahay wixii danahooda ah waxay doonaan kala sheegteen inay dadka guud ee maaragtay Soomaaliya ilaaliyaan iyo magacooda iyo sharaftooda runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa su-aasha ugu dambaysa adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda telefishinka caalamiga oo Cable TV maxaad kula talin lahayd ama u gudbin lahayd message ahaan dhowr milyan oo Soomaali oo ka daawanaya telefishinka caalamiga oo Cable TV runtii aad iyo aad baan u mahadsantihiin qolada reer Cable TV horta anigu waxaan aad iyo aad horta ugu mahadcelinayaa dadweynaha ku nool Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka jaaliyada noocyada ha noqdeen jaaliyada Soomaaliyeed ku nool waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Soomaalida ama koonfur joogta ama xamar ha joogto ee hadda daawanaysa waxaana leeyahay runtii Soomaaliyeey waxaan oran lahaa runtii darihiina ka tashada dhalinyarta Soomaaliyeed ee iyadana burcada ku sii socota waxaan oran lahaa war hay burcadnimada tani waxba tari meese dalkiina iyo dalkiina u shaqeeya maanta idinka ugu mustaqbal fiican Soomaali
ودليراتين تدبي تمشرو ستدي تمشرو runtii aad iyo aad waxay ugu dhiban yihiin wada socotaan dawladaha qowlaatan dawladood dhalinyarta kale iyagana maartay maskaxda laga khalday ee qoladan al-shabaab ka haysteen waxaan lahaa marka soo hara daliino kuma jirto maanta cunugina ka dhinta cunug waxay noo barta waxna hadhow dadka inoo anfaca baa inoo muhiim ah sidaas baan soo jeedin lahaa aad iyo aad baan noo mahadsantihiin haddaad tihiin Home Cable TV aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa runtii booqashada aad igu timaadeen gurigeygii aan ka deganaa magaalada Kaasel waana aad arrinaan xusuusnaan doono haddii la yiraahdo intaasina waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan waraysiga dhinacyada badan taabanaya aan kula yeelanay wasiirka gaadiidka badda dekedaha iyo weliba la dagaalanka burcadbadeedka ee dowlad goboleedka Puntland Engineer Saciid Maxamed Raago isaga aan kula kulanay hoyga uu ka degan yahay magaalada Kaasel ee gobolka Sandalka Jarmalka وسو جديدتي مصطفى حاجة هارون يقولي وفرصنا دي محمد قري كل انتدبوا عن الكريتة الناس يداسيو أمان الله